golaha warbaahinta Soomaaliyeed ay u qabteen dhalinyarada saxafiyiinta ee u adeega bulshadooda. wariyuhu waa qof muhiim u ah bulshada sababtoo ah waxa uu ka shaqeeyaa oo warbaahinta iyo wariyuhu ay ka shaqeeyaan waa saddex qodob oo bulshada muhiim u ah. waa wargelin oo bulshadu inay war helaan ah oo bulshada had walba wixii dhaca ay ka qabtiraan. waa waxbarasho oo bulshada inay wax baraan ah. ta saddexaadna waxa la yiraahdaa waa maaweelo, taas oo ah inay bulshada haddii alla kuurooya farxad geliyaan oo waxa haddii alla kuurooya qalbigooda dejiyay ay u sheegaan. marka saxaafaddu waa halka laga ogaan karo had walba ummadaas wacyigeeda iyo garashadeeda iyo horumarkeeda iyo garaadkeedu intuu dhan yahay. marka waxaan rajaynayaa halkan duruustii aad ku qaadateen wax badan inay ka anfici doonto markaad ku laabatiin xarumihii warbaahinta. waxay ila tahay macallimiinta wax idin barayay oo qaar ay ka mid yihiin golaha warbaahinta sida shiil oo kale khibrad uma dhimana, muddo dheer ayay haddii alla kuurooya saxaafadda ku soo jireen. waagii warbaahinta Soomaaliya ka jirta ay ahayd waraaqa A4 oo joornaal laga dhigo oo 4 xabo la isku dhaji ayuu shiil soo shaqeynay. marka waxaan isleeyahay haddii alla kuurooya khibrad uma dhimana, adinkuna wax badan aad ka faa'iideen. insha Allah waxaan rajaynayaa waxaad halkan ka barateen inay ummadiina anfacaan. dhinaca kale anigu si gaar ah waxaan rabay maanta waxaan wariyaasha Soomaaliyeed si gaar ah rabaa inaan wala hadlo xaaladda maanta dalkeenu ku jiro iyo damaca Itoobiya iyo weerarka lagu soo fool leh iyo dalkeena ay haddii alla kuuroon yahay ay rabto sidii ay u qabsan lahayd saxaafaddu dhexdhexaad inaysan ka noqon. sababtoo ah wixii dalkeena dhexdiisa iyo Soomaalida dhexdeeda dhexdhexaad saxafigu inuu ka noqdo weyn, laakiin markii dalkiisa iyo dal kale ay joogto wariyaha dhexdhexaad lagama rabo. dalkiisa inuu difaaco oo waajibka askariga saaran oo kala saaran, waajibka madaxda saarana saaran, waajibka haddii alla kuuro qof kasta oo Soomaaliya oo damiir leh oo wax garta saaran ayaa saaran wariyaha. weliba afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda ka jara leeyahay xoogga ugu weyn ee la rabo dalka inay difaacaan. markaas oo kale waa saxaafadda Soomaaliyeed iyo saxafiyiinta haddii alla kuuroon yahay waxgaradka oo damiir kale oo dalkooda iyo dadkooda u damqanay. wariyuhu wuxuu wariye u yahay had walba dadkiisa iyo dalkiisa ayuu wariye u yahay. hadday jirin yaad war siinaysaa, yaad salaadlaysaa, yaad wax u sheegaysaa, intaba ma ay jirto. marka wariyaasha Soomaaliyeedna waxaan kula talinayaa maanta waxay joogtaa ayaa maali jiray inay dalkooda difaacaan oo aysan Itoobiya iyo Soomaaliya dhexdhexaad ka noqonin. intaasna waa kula talinayaa. waxaa la yiri weerkii doraad weylihii dhashiyo waxarihii cunaa wixii haray rabe wariyow ka kaca. marka saxaafaddu inay ka kacdo oo ay dalkooda difaacaan intaas ayaan kula talinayaa. dalkeena wixii ka jira oo dhibaataan inaad ummadda u sheegtiin ayadana haddii alla kuuroon yahay waa waajib idin saaran. waayahan dambe waxaa ka maqan saxaafadda Soomaalida wariyaashii baarista samay jiray oo qaladaadka hoose oo aan bulshadu ogeyn soo saari jiray. ma aanan arkin wariye inta daba galay musuq dalka ka jira banaanka soo dhigay. marka ayada laftirkeeda haddii alla kuuroon yahay meesha dal laga saxo iyo cidda saxda waa saxafiga. marka saxafiyiinta waxaan rabaa ayagoon been iyo huuhaa sheegay inay xaqiiqada banaanka soo dhigaan. intaasna waa kala talinayaa. waxaa la yiri كربونني وحكيت ساها
kaheeda waa ka raaxsaya karboona nin wax kaydsaha kaheeda waa ka raaxsaya qofkii wax qarsanaya ama wax gaara wata wariyaha aragiisa waa nacabya sababtoo wariyuu toosuu ka daba wata marka karboona nin wax kaydsaha kaheeda waa ka raaxsaya waa mahadsantihiin